booliska ka hortagga weerarada argagixisada dalka Kenya ayaa waxay sheegeen inay ka hortageen weerar kooxda shabaab ay damacsanayd inay ka geysato bisha soon dhexdeeda magaalada Nairobi ee xarunta oo dalka Kenya. qoraal lagu daabacay barta X ay ku leedahay waaxda ka hortagga argagixisada ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay inay la socdeen dhaqdhaqaaqyada xogta iyo halka isku urursanayaan kooxdan doonaya inay dhibaato ka geystaan magaalada Nairobi sida lagu sheegay warka ka soo baxay. waxaana la sheegay inay isku urursanayeen xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya halkaasina laamaha amniga ay si dhow la socdeen isla markaana ay gacanta ku dhigeen raggii iyo hubkii ay wateen. waxayna qoraalkooda ku sheegeen inay ka tirsanaayeen kooxda shabaab sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay waaxdan. boolisku waxay tilmaameen inay gacanta ku dhigeen hub iyo rasaas ay ka mid ahaayeen 600 oo xabadood, bistoolado, gantaalo iyo waxyaabaha qarx isugu jira oo la doonayay in lagu dhibaateeyo magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya. horay dhibaato ayay sidoo kale uga geysteen magaalada Nairobi, muwaadiniin ayay ku laayeen, haddana waxay damacsanaayeen inay weerar kuwaasi la mid ah ka geystaan magaalada Nairobi, balse laamaha amniga gaar ahaan waaxda ka hortagga argagixisada oo xogta si dhow la socotay ayaa ka hortagtay baa lagu yiri qoraalka ka soo baxay booliska ka hortagga weerarada argagixisada ee dalka Kenya. xasan calaadan dana TV muqdisho. soo ma aragtaan waa degdeg waa amaano waa fudayd waa hal martaaba u kaliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay altaabasho oo kaliya